barnaamijka dabagalka wararka arrinkan dhulka xadka beled xaawo derbiga laga dhisaya siduu xiriir ula yeelan karaa badda iyo dhulka la isku haysto saliidda lagu tuhmayo ama saliidda leh. bismillahi raxmaani raxiim marka ugu horeysa waxaan mahad u celinayaa TV-ga Universal oo arrintan aad iyo aad xasaasiga u ah nagu soo qaaday nalan soo qaaday si mataqaan ummadda Soomaaliyeed iyo caalamkaba loogu baraarujiyo dhibaatada meesha ka jirta intaas haddaan ka gudbo meeshaan hadda la sheegayo oo zona Mandera ah iyo meesha badda horta xiriirka sida loo maleeyahay xiriir juqraafiya la malay laakiin xiriir siyaasadeed iyo mid dhaqaale la leedahay xiriirka siyaasadeed oo xiriirka la leedahay waxay tahay dawladda Kenya waxaad moodaa inaysan marna tixgelinaynin wanaad maqlaysaan kalama sheegi karo ma kala go'nay si fiican aan ku maqli karnaa admiral hore ugu soco dawladda Kenya markuu horeysa siyaasadda waxaad moodaysaa markii ay soo qalloocinaysay mataqaan xuduudda badda xaggayga ay soo qalloocisay oo biyo badan xaggeeda ku leexisay siyaasad ahaan waxay ahayd in Soomaaliya iyaan tabar lahayn in waqtigaan maaragtay wax ku kororsan karto inaysan nation amba ummad la tixgeliyo ahayn ayaa horta ay siyaasadu laga faa'iideysto haddana maanta arrinta halkaa ka jirta sare dhulka ah iyaduna waxay tahay Soomaalidu agteeda inay waxba qiimaha ka lahayn maxaa jira lama dowro darisa oo weliba isku wanaagsan ilaa heer inkastoo dacwo ka dhaxayso waxay marka ugu horeysaba haddii dawladu ay damacdo inay xuduudda wax ka samayso weliba dhinaceeda inay dawladda kala tashato ay tiraahdo halkaas ayaan wax ka samaynaa dhinaceega ogaada hadda intaas soo dhaaftay dhinaceedii maana kayagii u soo riixday waxaa laleeyahay ilaa 1 kilomitir bar meelahaas 2 kilomitir ku dhawaad ay soolre ay gudaha soo gashay taa macnadeedu waxay tahay in sovereignty qarannimadii dalkan in lagu tacadiyo aad iyo aad maaragtay gabdaraweyn loogu geystay general mar kale Soomaalidu agteeda ay ka joogto iyaan jirin waxaa la yaab leh arrintan horta riyaanay socotay dawladana qayla ka maanan maqal laakiin beriyahan ugu dambeeyay soo kacday aad u soo kacday oo shaqadii la xoojiyay oo qalab cusub la keenay dirbi maaha meeshii waxaan ka hadlayaa meeshana ma la banaynayaa ra'iisul wasaariya wafdi heer qarana hogaaminaya ayaa Kenya asagoo jooga shaqada halkaa ka socotay iyadoo kale admiral haddii aad maqli karto waxna ma ihid ay horta macnaheedu tahay taas arrinta siyaasadeed waa taas laakiin arrinta siyaasadeed arrin dhaqaale daba taal sidii badaba arrinta dhaqaalo arrinta siyaasad riixday ay u ahayday in meesha shidaal laga helay badda ah ee halkaas soo inta la soo leexshay iyo zoonadan mataqaan beled xaawe meelahaas ayaduna waa basayn weyn waxaa ku yaala dhul weyn oo shidaal ku jiro sidaan warka mudaba ula soconay waxaa intaa ka sii daran waxaa culummadu ay leeyihiin macluumaadka halkaa laga hayno annagu in shidaalku oo u soo janjeero u raaraco dhinaca Soomaalida sidaas awgeed haddii xuduudda Kenya xag dhinaceeda laga qodo laga mudo way adag tahay in wax badan laga soo saaro sidaas awgeed gudaha waxay soo gelaysaa waxay rabtaa halkaa inay ceelka ka muddo oo wax meesha ku jira inay dhuuqday rabtaa ujeedadu marka waa asalkeedu waa taa ujeedada isugu xirayiin maana juqraafi kale iskuba xira xuduudana lama leexi karo 29 calaamaha ku taal oo midda u dambaysa ay badda gasho badda xuduudda halkaas ay ka leedahay cid qalooci karta male xataa hadda siibta koordinaadkeeda la hayaa marka laynka xuduudda badda kala qaybsha halkaasay ka baxaysaa marka waxay raad ku leedahay juqraafi kale male laakiin politically
economical ay dabada ka riixayso ayay arrintu tahay hase ahaatee kasoo qabo inaan soomaali waxba ugu fadhin Kenya oy dowladnimo u ixtilaafsanayn oy dowlad sovereignty loo inay sameeyeen u muuqataa arrinta horta waa sidaas dhibka yaala meesha waa sidaas aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Admiral Faarax Qare gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista badaha Soomaaliyeed macluumaadka aad nala wadaagtay nooma suuragelin inaanu su'aalaha aanu ku talagalnay ku weydiino sababa khadka telefoonka inaad maqli weysay awgeeda waan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga inta badan axsaabta siyaasadda Soomaaliya oo shir uu uga socday magaalada Muqdisho labadii maalmood ee la soo dhaafay ayaa gabagabadii maanta waxa ay ka soo saareen war saxaafadeed